deegaano badan oo gobolada Boqol iyo Bay ka tirsan ayay ka da'een roobabka xilli sanadeedka guga inkastoo roobabka da'ay aysan aad u xooganeen oo aysan biyo dhig samaynin haddana waxa ay ahaayeen kuwa lagu diirsaday oo ay si aad u soo dhaweeyeen dadka ku dhaqan deegaanada ay ka da'een degmooyinka Bardaale Buur-Hakaba iyo Baydhabo oo gobolka Bay ka mid ah iyo Rabdhuure iyo Xudur oo gobolka Boqol ka tirsan ayay dhibcaha roobka ka da'een waxayna dadka deegaanadaasi sheegeen inay heleen neecaw roobaad balse weli xareedu aysan galin waraha deegaanadooda ku yaala maalmaha soo socda ayaa la filayaa in si wanaagsan ay u da'aan roobabka xilli sanadeedka guga dhinaca kale cudurka shoombiyoodka ayaa weli saameyntiisa waxa laga dareemayaa deegaano ka tirsan gobolka Bay degmada Ufurow ayaa ka mid ah meelaha haatan uu ku fiday cudurka shoombiyoodka gudoomiyaha degmada Ufurow Xasan Aadan Nuur oo loo yaqaan Ilkacas oo VOA la hadlay ayaa sheegay toddobaadkii ugu dambeeyay 57 qofood inay u geeriyoodeen cudurka shoombiyoodka deegaano hoos yimaada degmada Ufurow iyo gudaha degmada Ufurow degmada ilaa iyo beelanka tuulanka ay hoos yimaadaan sida Buulacad iyo Dooreeba Eesow iyo tuugsay meelaha tuulooyin badan iyo degmada aydan waa isku soo wada duduub 57 qof oo geeraa 370 oo hadda shoombiyoodka u jiifan wuxuu sidoo kale gudoomiyaha degmada Ufurow sheegay inay gaabis tahay gargaarka dawo oo ay helayaan dadka deegaanka cudurkan uu ku sii fidayo deegaano badan oo degmada ka tirsan iyo dad badan oo ganacsato marka waxaan rabnaa inay dawladda waa u sheegay dad badan oo loo sheegay dawladda federaalka Kongo burgalbeed ayagana nagama dhagaaban waxaan u sheegnaa inay shacabkooda ka mid yihiin inay si degdeg ah wixii gargaar ay la gaari karaan oo meel kasta ay u marayaan inay u diidaan si kastaba ha ahaatee raadadka abaarta ayaa weli laga dareemayaa deegaano ka tirsan koonfur galbeed Soomaaliya iyadoona ay soconayaan dadaallo lagu caawinayo dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku jira xerooyinka barakacyaasha iyo deegaanada gobolada koonfur galbeed Soomaaliya